Asalaamu calaykum. Waxaan kula wadaagayaa qiso cajiib ah, taasoo ah ducada waalidku inay tahay mid aad iyo aad u cajiib ah. Haddaba, si aan kula wadaaga, marka hore nagu soo biir oo subscribe dheh. Mahadsanid. Haweenada ka mid ah, nin caalim ah ayaa waxa uu ku riyooday riyo. Waxa uu arkay saddex oday oo aad iyo aad u faraxsan. Gadaasha dambe waxaa taagan nin kale oo oday ah, misna aad iyo aad u murugaysan. Markaasuu riyada ku weydiiyey, wuxuu yidhi, maxaad idinku faraxsan tihiin? Waxay ku jawaabeen, ilmaheena oo naga dambeeya ayaa mar walba sadaqa noo soo bixiyaan, oo sadaqadaas ayaana soo gaarta, sidaas ayaan noo faraxsannahay. Ninkii kale ayuu weydiiyey, maxaa kugu dhacay? Odaygii ayaa yidhi, aniga wax sadaqa ii soo bixiya ma dhahan. Kadib waxa aan weydiiyey, wax ilmo kama soo tegin? Odaygii ayaa yidhi, hal wiil ayaan ka soo tegey, isna sadaqa ima soo bixiya, waxaana laga yaabaa inuu culays haysto. Waxa uu weydiiyey, wiilkaaga muxuu ka shaqeeyaa? Odaygii ayaa yidhi, markii iigu dambeysay webiga agtiisa ayuu dadka khamiisyada u dhaqi jiray, oo sida doobiga ayuu u shaqayn jiray. Caalimkii ayaa yidhi, markii aan riyada ka soo baxay ee waagu baryey, waxa aan raadiyey wiilkii dhallinyarada ahaa. Waxaan ku yidhi, xaaladaada ka waran. Waxa uu iigu waraaliyey, culays ayaa i haysto, oo ilmaha caanahooda ayaan la daalaa. Markaas ayuu ku yidhi, suuragal ma tahay waxa aad hadda shaqayso inaad sadaqa ka bixisid? Waxa uu mar kale ku waraaliyey, maya, suuragal ma aha, wayna adag tahay, wax lacagna hadda ma hayo. Markaas ayuu ku yidhi, in aad sadaqa bixisid ayaa kuu khayroon, waalidkaagana way gaari lahayd. Ninkii dhallinyarada ahaa ayaa inta baaldi biyo soo qaatay, waxa uu ku daadiyey meel webiga agtiisa oo geedo yaryar ka baxayeen. Markaas ayuu yidhi, dhirtan ayaan waraabin si aan ajir ugu helo, waalidkaygana aan ugu niyeysto. Markii uu intaas sameeyey kadib, habeenkii dambe markii uu ninkii seexday, ayuu mar kale waxa uu riyo ku arkay odaygii oo faraxsan. Inta uu mar kale su'aalay ayuu ku yidhi, maxaad u faraxsan tahay haddana? Waxa uu ku waraaliyey, wiilkayga ayaa sadaqa ii soo bixiyey, sadaqadii ayaa i soo gaartay oo waan faraxsanahay. Markii uu soo laabtay ee waagu baryey, ayuu wiilkii weydiiyey, aabbaha maxaa sadaqa oo aad u bixisay? Wiilkii ayaa yidhi, biyahaas ayaan dhir ku waraabiyey, wax kale oo aan u sadaqeeyo ma hayin. Wuxuu ku yidhi, waayahay, hadday sidaas tahay, Allah kugu aqbalo. Habeenkii dambe ayaa waxa uu mar kale riyo ku arkay odaygii oo faraxsan. Waxa uu weydiiyey, wiilkaaga waxa uu kuu sadaqeeyey maxay ahaayeen oo ma xasuusataa? Odaygii wuxuu yidhi, dhir ku taalay webiga agtiisa ayuu biyo waraabiyey. Biyihii ayaa waxay sabab u noqdeen kalluun ay ka tageen biyaha webiga oo aad iyo aad u liitay inuu cabo, kadibna inta awood yeesho uu webiga ku laabto, oo sidaas kalluunka u dhimasho ugu badbaado. Khayrkaas uu sameeyey wiilkayga ayaa anigana wanaag iga soo gaaray. Duruucda sheekadeenna, sabab u noqo farxadda waalidkaaga, oo mar walba wixii aad awooddo u sadaqee una ducee, si mar walba wixii aad bixisay ay u gaaraan, kadibna ay kugu farxaan. Fadlan, haddii aad halkan soo gaartay, nagu soo biir oo subscribe dheh si aad qisooyin badan halkan ugula socoto.